nabadda qofkii buriya maantii horena waa ku ducaysanay nabadda qofkii buriya iyo kii ku raaca samadu waa furan tahay balaayo ku gaar ah oo aan dadka ay salwaan Allah ku rid horta marka hore Ilaahay baan ku mahadinaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ثانيا waxaan ku mahadinaynaa oo u ducaynaynaa inta ka shaqaysay Ilaahay khayr weyn ku amaal mariyo Ilaahay asaga u yabohay oo wuxuu yiri لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما halkaasi haysta ana warna uga baahna duco waan uga baahan yahay oo ducaynayna oo khayr waa iska rabaan laakiin Ilaahay baa wuxuu yiri qofkii asagoo sida fala asagoo ridada Ilaahay ku dalbaya aan dan kala kalahayn فسوف يؤتيه أجرا عظيما إلهي وحو يجر دما وحن سيدونا أجري وين وح إلهي وين كنت المام يا صار وركرا يا ستلمام كرا ولا ريالو وحن إذن لنا انت رجينا خيارتينا كشقين المصلحة إلهي يبوهي أو حقها يكون فلان وحاكروا الله إنكم درها يا مسلمين وإذن دعينيسا مؤمنين وإذن دوان إذن دعينينا إلهي عملكينا مبرور إلهي نكيره وعملكينا إلهي أقبله وأجري وين وإن بليسنين إلهي ونسيه taas waxaan uga baxayaa dadka maslaxada wada dadka maslaxada loo keenan raba in la hadlo Ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wa awfu bi ahdi Allah idha ahadtu war ballanka Ilaahi oo fi hadad aad ballan gashaan waa waajib وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وربلنك أوفيا بلنكو وليس سؤالي دونا وليس ويدين دونا سؤال شي سنة سؤال لغو ويدينا وحا وبي حلاد بكارة تمات قيامات ولا ريالو بلن باقشين إذنكي ولا لهم بلن باقشين dad baa idin galay hadda qaybtood meesha ay joogto ballanka idin gashay haddana waxa meesha jooga waa bulshadii caamkeeda rag iyo dumar iyo dhalinyaro waa la jooga waxaan leeyahay horta ballanka Ilaahay aan galna aan oofino anagoo Ilaahay dartiisna u yeelay naftayadana u yeelayna wixii dhibkiina haystay waa la ogaay in badan baa dalbaynay oo aan lahayn Ilaahu nabad noo keen Soomahan maanta nabad iyo madar iyo nicmo Ilaahay ma idin siiyay mana wada siiyay aan ku dhagno wax yar oo fitna keena aan iska ilaalino wax yar oo fitna keena aan iska ilaalinaan idin leenahay waxaan leenahay amarka Ilaahay qaata وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كليا كو عمل فلا وحان ugu darayna waa samadu waa furantahay war dib waa dhaca dib hal mara waa dhaca qof waa dila waxay jirtay rasuulka nabi sallallahu alayhi wasallam oo jooga qof dili qisaas bay ka jiray waxaan jireysnayn dad badan xaraam isu raacay war dad badan oo inta taga dad baan ku aqli aaw cilmi aaw aqli yaysan dhicin hatta hadina laydinku xadgudbo oo la idin soo weeraro war ina iska dhaaftid ama aad ka roonatid maxaa loo diidaya waxa waajib idinku ah ina hadii ficil xun hatta uu yahay laga jawaabin waayo ballan baa idinku gashay ballan dadkii in la galay ku dhowra waxa uga baxaya taasna waa awfu bil ahdi in al ahda kana mas'uula waxaan ku daraynaa ana culamaana Ilaahay baan baryeeno إلهي وحن أبرينا أنتي هرت كشقيسي إلهي أجري وين وإلهي أكتس إلهي بقى أجوبه أجري يقول الله وين عمل كذا الله أقبله أنت كشقيسي أردن كل يوم كما شقينه واحد ضد بالا شقي وضياله واحد ميل بكسر بحين هي مامل بالا شقين هي كل وحن لنا خير وين أرت الله ينكو عمل مريض وحن قدرنا نبض قفكي بريه ما أنتي هرنا وأكون عيسنا نبض قفكي بريه إياكي كراعة samadu waa furan tahay balaayo ku gaar ah oo aan dadka ay salwaan Allah ku rid amiin ilaahay samadu waa furan tahay waxaan leenahay Ilaahay baan aqbalahay qofkii ku talagalay nabadda inuu buriyo iyo ashxaastii ku raacda balaayo ayaga ku gaar ah muslimka aan ku dhac Allah ku rid dadkii qofkii iyo ashxaastii fitnadaas inay fitnada madib u horeyso ku talagalsha iyo intii ku raacda Ilaahay baan baryaynaa wax ayaga ku gaar ah oo aan muslimka kale aan ku dhicin Allah nooga reeb